daawadayaal halkan aanu ku sugannahay waa xarunta tababarka naadiga heerka labaad ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo isku diyaarinaya kulanka ay wajihi doonaan dhigooda naadiga wasaaradda macdanta iyo tamarta. ciyaaryahanada wasaaradda warfaafinta ayaa kooxda horkacaysa hogaaminta horyaalka heerka labaad ee caasimadda Hargeysa waxaanay dadaal dheer ugu jiraan sidii ay uga mid noqon lahaayeen kooxaha u gudbi doona horyaalka heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa. haddii ay doonayaan tababare Maxamed Soomaali iyo ciyaaryahanadiisu inay ka soo dhex muuqdaan horyaalka heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa waxa ay u baahan yihiin dadaal dheer iyo inay guulo ka hooyaan kulamada ay toddobaadkani soo wajihi doonaan. bal haddaba aynu weydiino qaar ka mid ah ciyaaryahanada iyo maamulka kooxda naadiga wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland kulanka ay toddobaadkani ciyaari doonaan iyo rajadooda ay ka qabaan inay mar uun ka soo dhex muuqdaan horyaalka xiisaha iyo xamaasadda badan leh ee caasimadda Hargeysa horyaalka heerka koobaad ee dalka. bismillaahir rahmaanir rahiim markoodi ilaahay ma hadle marka labaad maxay True Cable oo nagu soo booqatay xarunta tababarka oo nagu mahad celinaya sidii galneerada mar walba ay u garab taagan yihiin haddaan ka garab celiyo kulankan aan maanta